ganacsiyada waaweyn iyo sidoo kale suuqyada casriga ayaa ku soo badanaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana sanadihii u dambeeyay magaalada Burco ku soo kordhay moral casri ay ku buhoobeen ganacsatada gobolka Togdheer iyadoo suuqyadaasi cusub ay ka faa'iideysanayaan isla markaana shaqo abuur ka helayaan kumanaan qof oo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Burco isduwaha wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Togdheer Cabdi Maxamed Ismaaciil ayaa sheegay in suuqyada Burco isbedel weyn ku yimid 10 sanadeed ee u dambeeyay gobolka Togdheer ganacsiga aad iyo aad ayuu u siyaadayaa marka loo eego sidii uu ahaa 10 sano ka hor iyo maanta ninkii 10 sano ka hor halkan yimi Burco maanta Burco garan maayo waayo Burco waxay yeelatay horumar weyn bay samaysay xagga ganacsiga hadda tagto suuqyadii ganacsiga waxa ka socda moolal waaweyn oo dadku isugu tagay oo ganacsatadu maal gashatay marka garan maysid 10 sano ka hor halkii ganacsigu joogay iyo maanta waxa u dhaxeeya graph aad u weyn ayaa u dhaxeeya oo uu koray ganacsigu waxa socda moolal waaweyn oo aad u ballaaran oo bartamaha iyo koonayaasha magaalada ka socda kuwaas oo la fidaya kuwaas oo la socda koritaanka magaalada iyo population-ka imanaya magaalada gobolka Togdheer magaalada Burco waxay xuduud la leedahay gobolku xuduud la leeyahay maamul goboleedka Puntland ama Soomaaliya wuxuu xuduud la leeyahay kilka shanaad ee Ethiopia kaas oo dhaqaale aad u badani inaga soo galo oo dhaqaale aad iyo aad u badan ayaa inaga soo gala ganacsatadeennuna waxay geeyaan oo dib u geeyaan raashinka bagaashka noocyada kala duwan ee ganacsiga ee sida dhismayaasha oo kale gaadiidka wax walba way geeyaan wuxuu inoo yahay suuq aad iyo aad u ballaaran ayuu gobolka u yahay marka waxa weeyaan ganacsiga gobolka koritaankiisu aad ayuu socdaa sidoo kale isduwaha wasaaradda ganacsigu waxa uu ganacsatada gobolka Togdheer ugu baaqay inay qaataan liisanka isagoo sidoo kale ka waramay halka uu marayo xeerka kala xadeynta ganacsiga oo wasaaradda ganacsigu gacanta ku hayso waxa jira ganacsato badan oo qaadatay liisamadii ganacsiga maamulka wasaaradda ganacsiga wuxuu soo rogay hayay wasiirkaygu hormuud ka yahay wuxuu soo rogay in lagu qaato 2 bilood gudahood 2 bilood way dhamaadeen marka labada bilood waxa loo siiyay in qof kasto ganacsada uu ka fakaro liisankiisa uu ku cusboonaysiisto isla markaana hadii aanu liisan lahayn uu liisan cusub ku qaato wasaaradda ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland maamulkeeda sare wuxuu imika gacanta ku hayaa mashaariic iyo xeerar lagu horumarinayo ganacsiga yaryar ka dhexe intaba sare loogu qaadayo marka insha Allah taala sida xeerka kala xadeynta ganacsiga oo aanu filayno dhawaan inuu soo baxo oo wax badan ka bedeli doona sidoo kale moolalkan casriga waxa iyaguna daba socda suuqyo yaryar oo ku soo badanaya magaalada Burco kuwaas oo hindisayaan dhalinyaro ka soo baxay jaamacadaha dalka isla markaana shaqo abuur ka helaya suuqyada Burco ma sha Allah ganacsigu waa fiican yahay inkastoo isku badan yahay dadkina ay shaqo moodeen ka bariyahan dambe shaqo dad badan oo bila shaqo ah oo shaqo u noqday oo dalkeena aan shaqooyin sida u badan oo imka la taabto warshado iyo wax lagu foofo ay dadku ku mashquulaan ama se beero ama se aanay jirin ay tahay xoolahaas ay ugu weyn tahay haddana ganacsiga wuxuu noqday waxyaabaha koobaad ee bulshadu ku hamido ee ku soo toosto alxamdulillah nin walba wixii ka helayna uu ka helaa kulli haddaan ka yar warbixiyo gobolka Togdheer ganacsiyadiisa boqolkiiba waxaan oran karaa boqolkiiba 90 fursadaha shaqo way banaan yihiin iyagoo ay banaan yihiin waxa mar walba ku bogaadinayna aan ku dhiirigelinaa dhalinyarada in ay maskaxdooda ka tuujiyaan ganacsiyada cusub ee ka hirgeli kara gobolka Khaliil Barrawran TV-ga qaranka Somaliland magaalada Burco.